kulanti wanaagsan daawadayaal barnaamijkeena ciyaaraha toddobaadkana waxaynu ku soo qaadan doonaa ciyaartooy Cabdisalaan Sallo oo caan ku ah kabtanka kana tirsan kooxda wasaaradda maaliyadda ee kooxaha caasimadda ee heerka koowaad. Cabdisalaan Sallo oo kamid ah difaacyada caasimadda Hargeysa ee kooxda wasaaradda maaliyadda ayaa ka waramaya taariikh nololeedkiisa kubadda cagta kaas oo uu ku soo qaatay garoomada caasimadda Hargeysa iyo gobolada Somaliland. Cabdisalaan Sallo ayaa ka mid noqday markii uu horeysay kooxda ciidanka asluubta dhinaca kooxaha heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa isagoo ku sugnaa muddo 3 sano ah waxaana uu markii dambe ku biiray sida uu sheegay kooxda ku ciyaarta magaca wasaaradda horumarinta maaliyadda isagoo ka mid ah haatan daafaca ugu cadcad kooxda wasaaradda maaliyadda ee kooxaha heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa. sidoo kale waxa halkan garoonka kubadda cagta ku soo booqday Cabdisalaan Sallo mid ka mid ah tababarayaashiisa kubadda cagta haatan Iidaan oo isagoo ah tababaraha koowaad ee kooxda wasaaradda horumarinta ee heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa. Cabdisalaan Sallo oo isagoo ah ciyaartooy jecel shakhsiyadda kubadda cagta ama dhalinyarta kubadda cagta ama da'yarta ciyaaraha kubadda cagta Somaliland ayaa waxa uu tilmaamay in garoomada kubadda cagtu ay leeyihiin xiise gaar ah ama sir gaar ah oo ku jirta garoomada waaweyn ee kubadda cagta ee Somaliland isagoo sanadihii u dambeeyayna tilmaamay in ciyaaraha kubadda cagtu ay sameeyeen horumar fiican oo dhinaca tababarada ah kuwaas oo ciyaartooygu ay ku xidhayeen had iyo jeer ale garoomada lagu qaato tababarka kubadda cagta. الرحمن الرحيم waxaan ahay ciyaartooy magaciisu yahay Cabdisalaan Cumar Axmed kuna naanes dheer Kabitaano Sallo bulsho badan ay taqaano Kabitaano Sallo sidoo kale waxaan ahay ciyaartooy heer caalamiya kana ciyaara kooxaha heerka koowaad gaar ahaan kooxda maaliyadda kooxda wasaaradda maaliyadda haddana halka taariikhdeeda ka waramo kubadda cagta waqtiyo badan baan bilaabay walow aanan nimka taariikhdii aan sheegi karin haddana kulay waqti waxaan soo bilaabay qaliil ahaa kubadda cagta waxay tahay waqtiyada qaar kood waxaan ku soo beeganay family-gu ama hooyooyinka kale ay noo diidi jireen kubadda cagta waxay tahay maanta noo arkaysa wadankeena heerka ka taagan tahay haddaan si yar kooban uga hadlo kubadda cagta runtii waxaan ka soo ciyaaray ilaa 10 kooxood wax gaadhaya heerkaygii koowaad heerkaygii labaad iyo heerkaygii saddexaad iyo heerkaygii afraadba runtii haddaan halkan ku magacaabo kooxahan ka soo qayb qaatay waxa kamid ahaa kooxdayda kubadda cagta ee aan ku soo bilaabay Horseed oo ay wali haatan ay jiraan ciyaartooydan ka wada garab ciyaar jirnay qaar kood aanu ka wada tirsanahay kooxaha heerka koowaad sidoo kale waxaan ku soo xigsiday heerkaygii labaad ka soo bilaabay kooxda Chelsea United oo iyaduna ahayd kooxda xafadeeda ka dhisnayd muddo badan aan ka soo tirsanaa heerkan maanta taaganahayna trading-koogii amuurahoogii aan ku soo gaadhay sidoo kale haatan waxaan ka tirsanahay kooxda heerka labaad ee Duufaan sidoo kale waxaan ka tirsanahay kooxda heerka koowaad ee wasaaradda maaliyadda
heerkayga kubadeed horta runtii sanadba sanadka kasii dambeysa wuxuu noqonayaa mid koraya oo marxaladda aan ku jiray sanadkii hore mid kasii koraya marka insha Allah waxaan rajeynayaa halka iyo halka kasii wanaagsanba inaan gaari doono kubadda cagta ka gaari doono runtii kubadda duruufo fara badan bay iska leedahay walow aan la soo tacaalanay duruufaha kala duwan ee kubadda cagtu leedahay alxamdulilah waan leenahay maanta xaaladdan kaga jirno kubadda cagta maadaama nahay ciyaartooyada caasimadda ugu wanaagsan ama ciyaartooyada caasimadda maanta ku magac dhaawan runtii marxalado kala duwan bay soo martay waqtiyada qaarkood waxay soo martay aanan ugu xalaaliyo waxaan aanan ciyaarin aanan jirin fursado dhaqaale la'aanu jirin baa waqtiyada qaarkood waxyaalo fara badan baa aduu na soo maray oo kubadda ku saabsan laakiin maanta alxamdulilah heerkan taaganahay ayaan ku alxamdulilah leeyahay oo waxaan arkayaa inaan marxaladii caqabada inta ka gudbinay waxa yareemkan haystaan ay dhawaan naga dhammaan doonaan insha Allah haddaan guud ahaanba ka hadlo garoomada Jamhuuriyadda Somaliland oo horta runtii aad bay fara badan yihiin wax la soo koobi karayna maaha laakiin inta garoon ee ugu caansan haddaan ka sheego waxa ka koowa Hargeysa Stadium oo ah mid sir badan ku dhuuhan tahay oo taageero badan iyo guulo fara badan aan ku soo gaaray sidoo kale waxa kamid ah Cabdi Bile Cabdi oo isaguna ah garoon taariikhi ah oo kulli taariikhda adduunkana ku xusan orodyahanno badan ay ka soo baxeen sidii ay ugu ordi lahayn ama xaaladda ay garoonka kaga soo qayb qaateen sidoo kale waxa kamid ah garoonka Burco Stadium Alamsi Stadium runtii isaguna waa garoon taariikh gooniye leh oo xamaasad leh waqtiyada qaarkoodna markaan ku soo ciyaarayo aan isiraahdoba Burco waxaad moodaaba inuu meeshii kubadda loogu talagalay ay tahay sidoo kale waxa ah iyaduna Cabdullaahi Stadium oo berbera ku yaala oo isaguna garoomada Somaliland ugu wanaagsan kamid ah taageerihiisu cajiib yihiin kubadda lagu ciyaarayo sida qaabka loo dhigana oo standard yahay sidoo kale Mo Farah Stadium oo isagu khaasatan ah garoomada runtii aan ugu ciyaarista badan ahay inta badan maadaama Hargeysa Gabil u dhowdahay runtii waxaad moodaa isagana in aad looga habeeyay oo maxaan ku raadayay taageerihiisa iyo kubaddan ku soo ciyaarna waxay yeelataa xiise gooniya marka waxa laaliyo waxa soo dad oo taageera oo aragto iyo qaabka uu qaadayba aad baan ugu isagana ugu mahadnaqayaa sidoo kale Xaajida Stadium isaga waxaad moodaaba isagu inuu bulsho fara badan isagu goonidiisa iskaga samaysan yahay boormeeyada lafteeda waxay moodaa meeshii kubadda loogu talagalay qaabkii loo ciyaarayay qaabkii la isku resafti gareynay marka garoomada cagta ee maanta Somaliland ka jira waa garoomo gibiyooga sar ku dheehan tahay oo aynu oran karno maanta waxaynu u baahanahay inaynu tartano joogto ah ka helno si sumcadda bini'aadanimo iyo sumcadda shakhsiyadeedba ay kor u marto marka haddaan ka tilmaamo garoomada ka soo qayb qaatay ama ku ciyaaray waxa kamid ah Hargeysa Stadium oo isagoo aan muddo fara badan ku ciyaarayay ilaa 20 maxaan ku raadayay tradingkii oo intaaba marxalado kala duwan la soo marayay sidoo kale waxa kamid ah Cabdi Bile Cabdi oo isagana safaro iyo amuraha ku gaaray sidoo kale Burco Stadium oo isaguna Alamsi Stadium isaga khaasatan waxban kaga tirsanay koox baaban uga jira marka insha Allah Burco on uga ciyaaro kooxda dawladda hoose ee Burco oo aan dhawaan kamid noqday dawladda hoose ee Burco marka runtii garoonka Burco waan ka soo qayb qaatay wareega badanna waan uga qayb galay sidoo kale Cabdullaahi Stadium walow aan koox ka tirsanayn haddana waxaad moodaa inaan noqnoqodkaygu ku farabadan yahay Gabil Sport Center waxaan jeedaa Gabil baan jeedaa iyadana runtii mar walba iyadoo meel walba ay joogto koobka imka degmooyinka ka socda laftooda waan ciyaaraya sidoo kale Boorama koobkii maanta dhoweed leeyaan ka soo ciyaaray marka runtii garoomada caasimadda oo dhan waxaan aaminsanahay inaan mid walba ku soo ciyaaray aan gobolada yaryar ahayn runtii haddaan idhaahdo macallimiinta maanta jooga ayaan ka hadli karayaa ama aan wax oran karayaa horta runtii macallimiintu aad bay fara badnaayeen haddaan mid iyo laba iyo saddex ka soo qaatana waxaan maleeyahay inaan koobi karin laakiin waxa jira shakhsiyaad gooniya oo si gooniya majority-ga ay saar jireen noqon lahaa qof jira oo maanta halkan nabaal weyn uga haya waxa kamid ah Macallin Ibrahim Salaaman Cali Kaariye oo isagoo ah macallinkayga caruurnimadeedii waqti badan da'yarteedii xiliyo badan iyo waqtiyo badan ay soo galeysaan kubadda cagta uga dhex muuqan lahaa sidoo kale waxa kamid ah Macallin Faisal Muuse Ildab oo maanta heerkan aan taaganahay aan is oran karo isaga maanta ku soo gaarsiiyay marka la eego gariirka heerka koobaad ورنتي ومعين شخصية دي سؤال ونكسن تاي وقفت الدمدي سنة كل عينين أنت ولا سكود أوجي مركا واحد أمسنا هاي معين كاسي إنه كل حيس جوني ويقولي سدوا كله واحد كتير معلمين فربضان وأنا حتى لو هذا كل من يمكن سيد معين كدير الدواء كله ولي ترديني يوح بس كمان كل من سيدا كمان محن كل هذا معين كان سعيد فيارة كله معلمين سأوفر بدون أنا نقول كل من بقى يا ولي ترى لكن معلمين تنقلنا سيد عبد الرياض وكله معلم إيدان وكله وفيصل موسى ده بكره سواء حبين يجوني بس ويجدوا المعلمين تكلبا مركارنتي ciyaartooyga dalka haddaan halkan kaga hadlo runtii ma soo koobi karayo maanta ciyaartooyga dalkeenu leeyahay
taariikho fara badan bay soo mareen ninba mar buu soo baxay marka haddaan idhaahdo hebel baan ku daydaa ama hebel baa sidan ah waxa laga yaabaa in rag kasii wanaagsanaan jirin laakiin shakhsiyadeeda markaan eega ka sala ahaan waxaan aad u taageeri jiray waqtiyadii aan yaraa nin aboo la odhan jiray kana tirsanaa kooxda Hargeysa Spring Water oo ninkaas aan mar walba aanu xiiso badan u hayn jiray oo garoonka xawaale ku daawan jiray waxyaalaha igu dheeriyeen position ka shanta ka ciyaarana isaga ka mid ah runtii waxaan halkan uga mahadnaqayaa walaalahay Home Cable TV oo iyagu mar walba la garab taagan dhalinyarta maxaan ku raadayay dhiirigelin fara badan sida agaasimaha Home Cable Maxamed Cabdishaaq Ilig sida walaalkay Mubaarak Bukaze sida kale Mukhtaar isaguna ah film qaadaha goobtan aan joogno runtii Home Cable shaqaalaha dhamaantood waxaan leeyahay idinku wad ku maasantiin sida wanaagsan ee sharafta leh ee aad noo soo ajibteen goobta aad ka wanaagsan marka runtii inta ayaan ka sii badanba waan rajaynaynaa Home Cable dhalinyarta waa qaban doonto aad iyo aad wad maasantiin dhamaan taageerahaygana waxaan leeyahay insha Allah sanadka 2020ka sanad cusub oo wanaagsan oo Ilaahay khayr leh hayno waxaa halkan ku soo booqday mid ka mid ah tababarayaasha kubadda cagta haatanna ah tababaraha koowaad ee kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda ee kooxaha heerka koowaad ee caasimadda tababare Iidaan oo tilmaamay shakhsiyadda Cabdisalaan Sallo shakhsiyadda nololeed ee uu ku leeyahay kubadda cagta waqti xaadirkan sidoo kale waxaa xusid mudan inuu halkan ka soo muuqday oo uu ku soo booqday mid ka mid ah ciyaaryahanada kubadda cagta waqti xaadirkan ugu caansan caasimadda Hargeysa iyo Somaliland Maxamuud Cabdi Xasan oo isagu tilmaamay shakhsiyadda Cabdisalaan Sallo bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdisalaan Cumar Axmed oo ku magac dheer Saleebaan ama Kabtan Sallo runtii wuxuu ka mid yahay ciyaartooyada difaaca imika ka ciyaara kooxaha heerka koowaad hore wuxuu ka tirsanaa wasaaradda ciidanka asluubta haddana wuxuu joogaa wasaaradda maaliyadda wuxuu ka mid yahay ciyaartooyada imika waqti xaadirkan difaaca ugu wanaagsan dalkeena akhlaaq ahaan iyo kubad ahaanba wana ciyaartooyada runtii imika lagu faani kare xawaaraha dheereynaya ku socda ee soo baxay wana shakhsi runtii booska difaaca dhexe aad ugu fiican kuwada imika ugu fiicanna ka mid ah waxaanu ka mid yahay ciyaartooyada mustaqbalka fiican ku leh kubadda cagta oo ninaan saaxiibnahay oo dhaqankiisa cibaadadiisa iyo shakhsiyadiisaba fiican tahay markii kubadda laga yimaadana waa shakhsi xagga waxbarashadiisa iyo shaqada kaleba ka dhisan waa nin aad iyo aad u shaqeeya oo runtii bulshada ku xidhan oo qof maaha koox keliya ah oo qof bulshada dhex u tahay oo saaxiibo badan ku leh aniguna waxaan ka mid nahay dadka isaga aan ku faano runtii xiriirka fiicanna leh waana shakhsi aan odhan karno wuxuu noqon doonaa gabayo hore loo maqli jiray iyo ragga caynkaas waxaan filayaa raggii bedel lahaa inuu yahay oo qof magaca maanta difaaca dhexe uu ka mid yahay aan hambalyeynaa insha Allah waxaan rajeynayaa insha Allah inuu isku soo gaarno kubadda weli koox maana noqon insha Allah inaanu isku gobol amba isku qaranka amba kooxa koobaad isku nimaadno insha Allah waxaan ku hambalyeynaa shakhsiyadiisa wanaagsan iyo kubadiisa fiicanba aadna u mahadsan waxa kale oo mahadnaqayaa barnaamijkan Home Cable TV oo runtii ciyaaraha iyo Mubaarak Bukaze oo Mukhtaar Muuse oo runtii marka sportska qofku qiimihiisa uu helayo waxa weeye marka bulshadii kale ee Somaliland ama caalamka la wadaago ay qofka wax qabadkiisa sportska la tuso taasna waxay naga caawisay runtii in ciyaartooy badan kubadii ku soo dhiirtaan balwadihii iyo sigaarkii iyo tahriibtii iyo qabyaaladii ay ka haraan waxaan uga mahadnaqaynaa Home Cable TV barnaamijka ciyaaraha oo runtii libana shakhsiyaadka ka shaqeynaya yihiin shakhsiyaad Mubaarak oo kale ciyaarihii aqoon u leh dhalinyartii ku xidhan aad baan ugu mahadnaqaynaa isagana markii koobaadna ma aha Home Cable TV weliga ciyaaraha ku soo jiray laakiin waa fikrad cusub iyo arrin wanaagsan lagu soo kordhiyay in laga reebo taariikh qofka ciyaartooyga oo xusuustiisa isagana waxa noqonaysaa motivation ama dhiirigelin kuwa kalena waxay siinaysaa chance aad baan ugu bogaadinaa Home Cable TV barnaamijka ciyaaraha waxaan leenahay ka sii wada aniguna waxaan rajeynayaa noqono mar walba ku waqtigiisa siiya ciyaaraha iyo Home Cable TV aad u mahadsantiin bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf al-anbiyaa wal mursaliin markoobaad ka wani mahad celinaya Home Cable TV oo runtii dhalinyarada la saaxiiba bulshadana la saaxiiba waxa kale oo mahad celinaya walaalkay Mubaarak Bukaze oo waxa kale oo mahad celinaya Mukhtaar Mursal Xiin aad baad u mahadsantihiin
haddii aan u yimaado issuega laga hadlayo ama maxaan ku rahdaayay ciyaartooyga maanta u martida ah home cable TV cabdisalaan cumar cabdilaahi axmed runtii anigu imika maan baran ka macalin ahaan shakhsiyadayda ahaan baan u bartay 2015 baad markuu cabdisalaan u ciyaarayay yar oo xaafadda oon xawaadlo ku daawaday cabdisalaan markaasaan arkay inuu hibo ama talent leeyahay oo maxaan ku rahdaayay gaari doono himiladiisa iyo hamigiisa intaa ka bacdi cabdisalaan dad badan baa ku bartay tiimka asluubta markuu ciyaarayay laakiin anigu ka hor baan bartay waa qof difaac ahaan iyo habka uu defender ahaan u ciyaaray ay aad ku soo jiidaysa dad macallin ahaan aad tababaraso ama dadka macallimiintii meelo dheer bay wax ka eegaan oo isku mid maaha dadkan kale dadka macallimiintii aniga tababar ahaan cabdisalaan aad buu soo jiitay waqtiga uu yaraa waqtigii dambana run ahaantii aad buu soo jiitay horta kubadiisu waa halka ka soo bilaabantay xaafadda ka soo bilaabantay aad ka qurux badan soo yar oo aad u yar inta ka bacdi tiimka maaliyad ahaan waxaanu cabdisalaan keenay difaacan ugu wanaagsan oo waxa runtii anagoo noo arkanay inuu tiimka maaliyadda wax fara badan oo qabyo ah oo gaab fara badan inuu ka caawinayo run ahaantii weli tournament lama sameyn tartana lama gelin laakiin waxaanu aaminsanahay ka maamul ahaan iyo ka tababar ahaan iyo ka tiim ahaanba in cabdisalaan ku soo kordhin doono tiimka wasaaradda maaliyadda horumar fara badan sidii uu tiimka ciidanka asluubta finalka uu gaarsiiyay inuu annagana maxaan ku rahdaayay annagoo isku duuban gaarsiin doono kubadiisuna runtii ay intaa in ka badan sii horumar doontaan rajeynaa insha Allah xagga akhlaaq ahaanta iyo edeb ahaanta cabdisalaan haddaan u imaado waa qof mutaadaba akhlaaq badan runtii aan cunfi lahayn aan marka kubadda la ciyaarayo kubadda sidoo u qaadanayo qofka uga qaadayo iyo sidoo u dhisaya labaduba runtii ay compromise aad ay isku maxaan ku rahdaayay dhow yihiin xagga waxbarasho ahaan anigu cabdisalaan aad baan ula socdaa cabdisalaan waa qof aan kubadda nolosha aan ku koobin oo wadankeena dee wada dad kubadda nolosha kubadda ku koobto runtii wax fara badan baa ka aanad gaarin ama kaalumaya cabdisalaan runtii waa qof shaqo kala qabto shaqaysta xagga shaqo ahaan waxbarasho ahaanna fiidka ayuu waxbarashadiisii wataayo galaa anigu markaan training ka sameynayno haddaad u sheegto cabdisalaan isagoo lambarkiisu xidhan yahay xagga ballanka aad buu ilaaliya haddaad u sheegto iyada oo ay trainingkii ka harsan tahay daqaa'iq watawaal cabdisalaan waa ninka dhaweeye soo qaadanaya markaaba imanaya shakhsiyadiisu waa taa xagga cibaada ahaanna waa qof cibaadadiisu aad u wanaagsan tahay cabdisalaan dhan walba oo qofka sidaa uga dhisan runtii dee mana faaninayo oo xaqiiqadu waxa weeye qof walba dee qofkiisa uu garanaya oo magaala la joogay qof walba dee uu garanaya intaa ka bacdi rajada aanu qabno iyo ididilada aanu qabno waxa weeye cabdisalaan inuu naadiga wasaaradda horumarinta maaliyadda inuu gaarsiin doono xagga magacuba uu tahay horumarin inuu isaguna xagga kubad ahaan horumarin doono wax fara badanna gaari doono guulo badanna la gaari doono insha Allah tacaala aad baad mahadsantihiin waxa kale oo aan halkan uga mahad celinayaa tiimka wasaaradda horumarinta maaliyadda oo ay ugu horeeyaan wasiirka wasaaradda maaliyadda Saad Cali Shire oo ku xigo agaasimaha guud oo runtii qof aad imika u fahansana kubadda cagta agaasime gurxan runtii waxa kale oo mahad celinayaa howlwadeennada wasaaradda horumarinta maaliyadda shaqaalaha waxa kale oo mahad celinayaa tiimka wasaaradda maaliyadda gabi ahaantooda waxa kale oo mahad celinayaa gudoomiyaha naadiga oo aad runtii wax fara badan tiimkan ka bedelay u hagar baxay isagoo shaqooyin kala haysta Kamal Maxamed Yuusuf ilaahay raali ka noqdo waxa kale oo mahad celinayaa tababar ku xigeenka Amiin Sheekh Ismaaciil dhammaan annagoo isku duuban waxaanu leenahay aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaynu intaa daawadayaal toddobaadkan kusoo afmeerinaa barnaamijkeeni ciyaaraha aynu toddobaadkan marti inoogu ahaa ciyaartooyga cabdisalaan sallo isagoo haatan ka tirsan kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda ee caasimadda hargeysa ee kooxaha heerka koowaad waxaana barnaamijkan idinla socodsiinaya anigoo mubaarak bukaasa dhinaca muuqaalada iyo kamarada waa mukhtaar mursal xiin dhanka farsamada oo barnaamijkan isku dubaridayna waa ridwaan bukhaari tan iyo kulanti dambe iyo toddobaadka dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu